بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه شيخ عبد الرزاق إلهي كعافيو أما أنا بدنا وشيغيو دي باس الله أقول نقول تامر كان دافو حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقلت المام ذاق طعم الإيمان وحادد ميي أما حلاوة الإيمان لبا حديث الصحيحة حديثك الشيخ وآخرية حديثك أنس والنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان إيمانك معان كيسا وحادد ميي صدح خصلو نك لغا xadiidku waxa uu sheegayaa iimaanku inuu dhadhan leeyahay dhadhankaasina inuu macaan yahay axaadiis kaloo badanina waa tilmaamaysaa maalan xadiidka alcabaas bn cabdilmuطalib ee muslimka ku yaala daaqa طacma aliimaani man radya biاllahi rabba wabilislaami diina wabimuxamadin rasuula nabigu calayh الsalaatu wasalaam ذاق طعم الإيمان بودي ددن كإيمانك وحد دميي حديث كان إنه شوقنا وحشيقيا ددن كاسين وحلاوية الحلو وحمعان إذا إيمانك إلهي الرومين تيس يقين تاسي هدي قلبي قدكتو ددن بي أولادي قفك مسلم كا وحدك ما أنو شرين ددن بي أولادي قفك مسلم كا wax kaloo u dhegdhegu ma aanu jirin sida cunadu carabkaaga ugu dhadhanto hadday macaan tahay ayay quluubta dadka muuminiinta ee dhabtaa u dhadhantaa cibaadada iyo iimaanka iyo ilaahay weynayntiisa iyo cibaadadiisu sawgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya inuu iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa dhadhamiyey khaslaadkaasi cidda laga helo haddaad markaa adigu dhadhankaa weydo naftaada tuhum waxaad weli u baahantahay inaad tarbiya dib isugu noqoto waxaad u baahantahay inay naftaada dib aada uga jafjafto waxyaabaa u baahan in laga jafo qofku markuu xanuunsadee caadiga ah afkiisu wuu qadhaadhaadaa dabeetana waxaa siilayaan macaan haddii loo dhiibo ayaanu macaankiisa dhadhamin qof xanuunsanaya waxaa laga yaabaa dad sokor u dhiibto inaanay wax macaan la dhadhamin macnuhu ma aha inaanay sokortu macaankii ka tegey ee waxa weeyaan aalatu dawq baa khalkhal ku jira qalabkaagii wax dhadhamin jiray carabkaagii wax dhadhamin jiray ayaa xanuunka ku dhacay daraaddeed wixii macaanka ahaan macaan u dhadhaminaynin haddii markaa ay cibaadadu kula macaanaan weydo iimaanku kula macaanaan waayo khalalku wuxuu ka jiraa xaggeennee maaha inaan iimaanku macaanayn nabigu calayhi salaatu wassalaam waa kii xadiidka saxiixa ku tilmaamayey adduunkiina kan waxaa lay jeclaysiiyaa nisaau watiib wajucilat الsalaatu salaadana waxaa laga yeelay buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ishaydu mid ay ku doogsato ishaydu mid ay ku doogsato ayaa salaadana laga yeelay buu nebigu leeyay calayhi الsalaatu wasalaam walidaalika ayaa maalan salaadoo kale marka dhibi qabsato nabiga calayhi الsalaatu wasalaam idaa xasabahu amru fazaca ila الsalaa arrin hadduu warwargeliyo salaada xaggeeda ayuu carari jiray ama arixnaa biha yaa bilaalu leeyi macnaheedu waxa weeyaan cibaadaadku iyo iimaanku iyo ilaahay inaad ku xidhnaataa dadkaasi ahlu taqwaa dhadhan bay u leeday al-unsu billaahi wax u dhigmaa ma jiro qofku inuu rabbigii weheshado rabbigii inuu weheshado wax u dhigmaa nolosha ma jirto qofku hadduu rabbigii weheshigiisa uu helo
qalbigiisa xasila adduunkaan warwar ku haynin waxa dhacayaan dhib ku haynin arsaaqda intuu helaabuu qanaaco ku qabaa adduunyadaynu joognoo dhami qiimo badan uma samaynayso waxaase qiimo u samaynaya rabu الsamaawaati waalardi inuu ku xidhnaado sidaa awgeed tana hal qiso haddaan idiin tilmaamo xadiis aan rajaynayo in abu daawuud ku yaallay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo saxaabadiisa way dagaal tageen qolaa dagaal la ysku soo helay waa soo noqdeen iyagoo soo socda ayaa nin gaalada ka mid oo malaa dadkii wax ka soo gaadheen ka mid ah ayaa wuxuu ku nadray anoo muslimiinta dhiig ka daadiya mooyaane inaanan hadhin laakiin de waa nin quro oo raadco ah uma bedrheeri karo markaa wuxuu eganayaa un cid dagan uun habeenkii muddaa la soo socday markii la seexanayay ayaa laba saxaabi la yidhi gaadh ka qabta idinku dabeetana dadkii uu iska seexday labadii ninee gaadhka hayay ayaa midi kii kale ku yidhi waan yara laamadoodayaaye ee kici haddaad wax dareento muddo markii la joogay bay dareemeen meeshu inay nabad iska tahay kii hore wuu seexday kii dambana salaad buu galay riwaayaadka axaadiista qaar ka midi waxay leeyihiin suuratulkahf buu akhrinayay salaadda isagoo ku jira ayaa ninkii gaalkee raacdada ahaa ee gaadada ahaa ee daba socdaa arkay ninkan taaganee salaadda ku jira iyo dadkii kaloo aan dhaqdhaqaaq ka jirin intuu meel ugu soo gabaday ayuu leebkiisii qaansadiibuu u cabbaystoo gamuun buu ku dhuftay gamuun baa ku dhacay saxaabigii dabeetana wuxuu necbaystay inuu salaaddiisa gooyo dhadhan buu ku haystay ninkii gaalka ahaa haddana kii labaad buu ku kiciyey waa ku dhacay bay yidhaahdaa haddana waa ku kiciyey dhowr leeb markay ku dhacday ayay soo gaadhay xilligii rukuucda wuu rukuucay marka uu dhaqdhaqaaqii ninkii inuu rukuucay dareemay ayuu is yidhi de waa lagugu soo bixiyo gaalkii uu iska tegey dhiiggii ninkan ka dareerayey ayaa qulqulkii wuxuu u galay ninkii jiifay hoostiisa kii baa dhiigga arkay markaa wuu kacay isagoo leh subxaana allah war maxaad ii kicin weyday salaaddii markuu dhammaystay wuxuu yidhi waxaan ku jiray salaad baan tukanayo ilaahay baan la hadlayo waxaan necbaystay inaan munaajaadka rabbi kala gooyaa baan necbaystay yacnii ninkan nabarradu ku dhacayaan ee haddana dhiiggu dareerayo ee taagan mowqifkaasi xarajka ah wuxuu dareemayaa iimaanka dhadhankuu ku haystaa kale macaan nabarradan ku dhacaya walidaalika waa bacdu salaf waxaa la sheegaa adin baa la yidhi baa lagaa qalayaa markaasay yidhahdeen bunji cab bunjigu waa bahladan laysku suuxiyo yacni bunjigaa cab waad suuxaysaa waad maandoorsoomaysaa markaasa qalitaanka lagu bilaabaya wuxuu yidhi oo caqliga ma tegsiiyaa markaasaa la yidhi haa caqligu wuu tegayaa markaasuu yidhi war bunji cabbi maaye salaad baan gelaya markaan salaada galo wixii idinka idiin muuqdo sameeya salaad buu xidhay bay yidhahdaan intuu salaadda ku jiraa la qala yacni salaaddaa uu galay dhadhanka iyo macaanka uu ku haystay daraaddeed baa waxaanu dareemaynin birta lagu jarayo xataa culimmadan sayniskee dambe waxyaabay tilmaamaan ay yidhaahdaan maskaxdeennu waxay soo daysaa hormoonno tiro badan oo qaar ka midi ay qofka bini aadamkaa dejiyaan ama suuxiyaan siiba maalan markaad dagaalamayso dee qof istishaan nabarraa kugu dhacaya nabarradaa intaad dagaalka ku jirto o dhan dareemi maysid hadhow marka laydinkala qabto aad fadhiisataa unbaa meel walba ku damqanaysaa oo halkan naawalba kiiba igu dhuftay baad leedahay markaad dagaalamaysa maxaad ogaan weyday waxay dhahdaan hormoonnay maskaxdu soo daysaa marka ay qaab kaa galayso qofka dejiyo oo sakhraamiyo oo ilowsiiya nabarrada ku dhacaya waxay ugu badan yihin bay yidhahdeen maalan dumarku markay umulayaan
umusha ilaahay baa ku dhaafiya oo lowla aanay hormoonnadaasi soo da'aynin haweenku inay umulaan way adkaan lahayd saa daraaddeed qofku cibaadada markuu dhadhankeeda helo sideeduu u degaa alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub baa ilaahay tilmaamaya war hooya ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ayaa quluubta ku xasishaa marka waxaan leenahay sida uu nebi moxamed sheegay calayhi الsalaatu wasalaam iimaanku dhadhan buu leeyahy daaqa طacma aliimaan kanna waxaa la yidhi halaaثun man kuna saddex ninka ku jira wuxuu helayaa xalaawat اliimaan xadiid kale dhadhan buu leeyahy buu yidhi xadiidkanna wuxuu sheegay dhadhankaasi inuu macaan yahay macaankaa waxaa helaya sifaadkaasi axaadiistu tilmaamayaan ee ay culimmadu inoo sharxi doonto ama xadiidkaasi kale ku yaalla man radya biاllahi rabban wabilislaami diina wabimuxamedin nabiya waxaasoo dhan cagsigeeda waxaa la tilmaamaya iimaan la-aantu inay cidhiidhi leeday waman yacshu can dikri الraxmaani ilaahi subxaana wa tacaala waa ka tilmaamaya waman yucrid cidda ka jeesata ilaahay dikrigiisa wuxuu helayaa maxay maciishatan danka nolol cidhiidhiya cidhiidhigu waa wax qalbiga laga dareemo markaa marna qofku macaan buu dhadhaminayaa raaxat lbaal buu helayaa rida nafsi buu helayaa ilaahay u dhowaanshiisiiyuu helayaa marna sakht iyo warwar iyo walbahaar iyo mashaakil ku tiro bata iyo nolosho aan dhadhan u samaynaynin wax kastoo hantiyo maadiyo u haysto bini aadamku meeshuu raaxada ka dareemaa waxa gacanta ku jira maaha waa waxa qalbiga ku jira gacanta waxa ku jira kuwa ugu xoolaa badan leh marar badan bay ugu warwar badan yihin dunida dadka istiile la sheega waa tabaqa alwusta iyo wixii ka sarreeya faqradu inta badan isma disho waxaan leenahay markaa iimaanku macaan buu leeyahy macaankaasi inay tafsiiliyaan culimmadaan u daynaya anigu waa u furfurayay une wasala allahuma calaa muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin